بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن ولا ليال ولكن عبد الرزاق أما أبوان كبحاي سأتقانو وحان ربا مانت وحالي صد درايا مقال مد أو أبا جدا أو ملان مدوكا شكوسو قرار روحو وقانين دادكا أو مقاحيدا ملان كشيقين جري أو دادكا الأغادين كوسو دحكوري أما ريراهن ريلقديرا وحو كودا جايا أركايي حلي ما فارح معلن asaga oo u hadlayo Somaliland oo xildhibaan Faarax Macalin iyo NFD gobol ahaan iyo dadka reer North Eastern u gafayo ee ka hadashiinaysan qabyaalad horto beenaalaad tahay khaa'in ah oo Ilaahay iyo kitaaba aqoonin waxa tiraahday jaamacado kuma yaalaan gobolka NFD beenaalaad tahay Garissa University iyo ilaa 5 jaamacadood oo waaweyn ba ku yaalaan colleges ku yaalaan Wajeer waxa ku yaalaan jaamacado Mandera waxa ku yaalaan jaamacado magaalada Dadaab waxa ku taala jaamacad uu keenay Faarax Macalin Kenyatta University oo xilliga hore xildhibaanka oo uu keenay Faarax Macalin waa ninka hadda secondary free waxbarasho kaliya ee hirgeliyay maxaa la dhihi jiray Dadaab secondary school oo idil sub county laga soo doorto waa bilaash waa ninka markii saa loo soo doortay jaamacad geeyay maxaa la dhihi jiray in ka badan 400 oo canug oo dhakhaatiir boqol ka mid ah dhakhaatiir akhrisanayaan waa ninka lacagta xildhibaanada markii saa loo soo doortay baarlamaanka Kenya la siiyo V8 ama guriye inay ku gataan ama gawaari qaali ay ku gataan loogu talagalay waa ninka jaamacad ku geeyay Faarax Macalin waxaad ku haysataa muxuu u difaacay badda Soomaaliya laamiga aad sheegayso North Eastern wixii ku weysay Soomaalinimada iyo dalka Soomaaliya 63 maxaad u dhahdeen Soomaaliyan u go'eena oo raacayna waxaana saarneyd emergency arrintii aan ku waayay hormar intaasoo sana aan kula ee wadanka kale aan oga haray waxay ahayd Soomaalinimo maanta ma kula tahay ayadoo badeedii uu oromay qaadanayo inaan aamusi lahaa Faarax anaga soo dooranay anaga raali oga ah waa nin xigmad badan dadkiisina waa deeqay umadaha kalena wuu deeqi oo codkar waayo wuu u hadlay waxaan kaloo rabaa inaan ku ogeysiyoon ku sheego waxaa tira qarax baa meesha ka dhacay qaraxa wuxuu ka dhacaa wadamo hormaray oo zaid u hormaray oo anaga naga sii hormarsano Europe iyo American iyo Ingiriis buu ka dhacay macdallaahi jid iska cad oo intaasoo boqol aan laami ahayn 100 kilometer aan laami ahayn meel qarax la geliyay xildhibaan shaqadii ma aha security-na shaqo kuma laha waa loo meeka ninkan xildhibaanku sharciyadu sameeyaa dhul ma ilaaliyo midda kale ma ka warqabtaa magaalada Dadaab weligeed inuu qarax ka dhicin soo moogid nolosheeda meelahan kaluuba ka dhacay qarax Keenyada kale laakiin weligeed magaalada Dadaab inuu qarax ka dhicin ka warqabtaa maxaa la dhihi jiray waxa tiri biyo la'aan ba ka jirta dadka on iyo wax bay qabaan ba dhahday beenaalaad tahay meeshaas xerada qaxootiga kaliya xiriyaha qaxootiga ee Dadaab halkii xerada ahaa waxa u duran in ka badan 30 ceel hashi xerada ahayd deegaanka kalena 5 kilometer 4 kilometer markaad socoto waa biyo waa ceel riig ah ilaahay baan ku manaystay biyaha equivalent yaraha dhulka hoostiisa underground water-ga oo macaan ah baa meeshaad faaqdaba kaaga soo baxayaan dhulkaas dhul oon ka jiraba ma aha waxa ka dhaxlaysa qabyaalad waana lagu dareensan yahay kuwa kuusa maxaa la dhihi jiray isla xoogaa yacni ku yara no commentiga ku soo qorqorayna oo arkay maynan dareensaneen inaad u hadlayso qabyaalad fog oo maxaa la dhihi jiray aad isirnaceeb iyo daarood iyo meelahaas aad ka dagaalamayso ayaga maynan ogeen waxaan dhihi lahaa edab yeelaan ku dhihi lahaa haddaad edab yeelan waysana waa lagu yeelayaa anaa ku dheh hadalkaas si fiican u dhageyso waa lagu garaaci raxow Faarax kulama eka qeyrkaana ma aha anaga raali ka ah inuu ka hadlo Soomaaliya inuu ka hadlo gobolkan waqooyi bari oo idil inuu ka hadlo geeska Afrika waa nin Soomaaliyeed dhiig Soomaali ku jiro
shan han baa jiraan baa layidhi han qofeed han qoys han qabiil han qaaradeed han qaran faarax macalin han qaaradeed baa ku jira xigmadda ilaahay siiye muxuu u le hurdi iyo jiif uu idin diiday hadduu siyaasigiina yahay hadduu yahay maxaa la dhihi jiray xildhibaankiini hadduu yahay caruurtiini hadduu yahay abagidhihii adoo kale ahaa oramada kasoo dhexadlaysay boorantana maxaa la dhihi jirtay badoogaashaan umalaynayaa yaa meelahan kugu dhashay soomaaliba uma dhalan adige marka idab yeelaan ku leeyahay marka dambe ee aad soo hadli doontana waxaad hubto ku soo hadal ninka hadda aad haysato ilmo uu jaamacado u diray iyo ceelal ilaa 40 uu qoday hadda intuu soo galay waa hal sanad gudihii caruurtii ugu badnaa shaqaale UN ama hay'ado la qoro xilligiisii hore xildhibaanku uu ahaa dhalinyarada ugu badneed baa shaqo heshay hadduu soo noqday dhalinyarada ugu badneed buu haddana shaqo qoray maxaa la dhihi jiray annagii soo dooranay baa ku faraxsanay inuu ka hadlo abagidhaaga adoo kale ah iyo dadka inuu u jawaabo waana nin cod ka raa maasha allah oo tviyada Kenya inaad aragtay ma ahane hadday rabaan inay qabtaan arrin laga doodo wadanka waxyaabaha wadanka ka socda markuu asaga fadhiya meesha aad buu u gadmaa showgaas asaga ah ama barnaamijkaas marka anug calool buuran oo rax oo waxba aan kala ogeyn oo saliidi wali ka shiifayso oo cunihiisa saliida ka dhibqaysatay idab yeelo maxaa la dhihi jiray waxa aad ku hadlaysana facts ha noqdaan iyo xaqiiqa meeshan qabyaalad iyo yacni nacab iyo Somaliland baan u hadlay inaad la soo fariisato kaliya ma aha xaqiiqa meesha lala imaadaa wax jira ku hadal haddaadan ku hadlaynin idab yeelo maxaa la dhihi jiray xildhibaan maanta baarlamaanka Kenya ku jiro oo ninka ka hawsha uu haya ama hadda intuu qabtana maba jiraba maxaa yeelay hadduu secondary free ka dhigay haddii jaamacadihii waxbarashadii uu u diray 100 dhakhaatiir iyo 300 oo waxbarasho kale ah hadduu diray injineer iyo waxa oo dalka dibadiisa u diray haddii maxaa la dhihi jiray waxa horta laamiga jidka looga dhigi lahaa ma ka warqabtaa inay tahay boodhada Soomaaliya in alaab ama la Soomaaliya ay ta ma ka warqabtaa oo warshadaha Kenya inay wax ka gadmaan la rabay ani Soomaalinimadaasaan yaan wali igu jirtaa wali waana ku taaganahay waan aaminsanahay hadda waxay ahaydna waayba imaatayba laamiga waaba la dhisay mar dhow marka waxaad ku andacon doontaa aniga ma aqaano magaaladaas waa dadkaas yani faarax macalin iyo magaalooyinkiisa iyo North Eastern waa dad ninka ku faraxsan hadaadan ogeyn waxyaabaha kuwa ashaha la cabtay beenta ku sheegeen next time wax si fiican iskaga weydiiyo yahay faarax macalin marka aad baa idin salaamaya warninka nin aad micnaha har iyo joog buu idin diiday يعني منين ما أنت في هالمقال أسوي فريسة أو wax ku waxyeelan karta magaciisa ma arun ahantii wiilasha asaga u dhalay kaliya ayaa dawladda u shaqeeyaan marka aniga oo tartiib saan ku leeyahay anug yar oo la soo khalday baa tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warwaaydan salaamay intiina kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi